halkani waa duleedka xaafadda 15 May waxaana ku nool boqolaal ka mid ah qaxoontiga ka soo barakacay dhibaatada ka taagan wadanka ay jaarka nahay ee Soomaaliya. dadkani waa dad u baahan daryeelka ay helaan muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waana dad naf soo biday wadankan ay jaarka yihiin ee Soomaaliland. ma jirto wax hoy ah amaba guriyo ay ka galaan dhaxanta, ma jirto xaalad caafimaad, ma jirto xaalad waxbarasho oo ay ubadkooda siiyaan. haddaba si aanu arrinta wax uga ogaano xaqiiqadana u soo taabano ayaa saaka telefishinka caalamiga SBC oo ula qalab qaatay waana kuwan iyo nooga warbixinaya xaaladahani haysta. waxaan ka nimid koonfurta Muqdisho barakacayaal baan nahay, waxaan degannahay 15 May isbitaalka Malhal ee dhibiibaan la yiraahdo. halkaan anaga aan degannahay caruurtayni anaga waa isku mashaakilsanahay, waxbarasho ma haysano, nolosha bini'aadamka ma haysano, hooyo ma haysano. waxaan macnaha ka codsanaynaa muslimiinta islaamka, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, maayarka in muraad, waxaan doonaynaa in ilaahay dartiis Xamse Maxamed, waxaan doonaynaa in ilaahay dartiis rasuulka cindigiis in halkaan noogu. waxaan joogaa 15 May qolyaha barakacayaasha, waxaan ka cabanaynaa waxbarasho ma haysano, waxbarasho ma hayno. caruurtayni waxa waaye wax alla waxaan siisanayno male, waxbana lama siiyo. halkaasaan joognaa 40 sanaan joognaa bro, waxna caawinay male. shalay yaa waxa noogu darnaa qolyaha haafyooka ka socday inay tiri ciidan leh ciid yaan leh anna waxaan ciid ilaahay baale masaakiinkaas ahay Soomaaliland ku dhax joog. waxa jirta dad gaar ah oo iyagu aan barakacayaasha ahayn oo odayaasha xaafadda ka mid ah oo iyagu carabaabeen isla markaana isku sheega gudi hay'adaha raashinkoodii iyo waxoodiina iyagu leexsada. haddii ay hadlaan barakacayaashuna ku yiraahdo ciidan u leenahay, kuwaas maxaad ka ogtahay? kuwa waxaanu ka ognahay waxa jira nin ida xaafaddan kaga gudoomiyahay isna hortaaga wixii loo keenay maan dhowto oo u dambeysay markaneeco iska hortaagay annaga odayaasha xaafaddan annaga u fasaxnay kula dagaalanay saliga Faarax Umar oo nasta tagnay. maamulkana guddi buu leeyahay ka diiwaan gashan saliga Faarax Umar gobolka dawladda hoose dalada barakacayaasha ah oo gudoomiyuu leeyahay. gudoomiyay ka hor yimaadeen waxay annaga dhakada ka maamul. xaaladaha ugu daran waa hoylaan, waa dhulaan, waa biyalaan, caruurtooda waxbarasho la'aan, hadeeg waa meesha ku jiraan maalin walba loodhay ka guura hadeedan lacagna siinaynin. hadda ma garatay hooyay dhulkii kaliya day buusha kartoomada ay baxa dhisan lahaayeen wax loonaya guura ama lacag keena, lacagtii ma haystaan. isku soo wada duubo dhibaatada haysata dadkani ayaa waxay soo haysatay tan iyo intii ay ku soo barakaceen wadankani Soomaaliland. Shaybe Umar Ismaan, Shaybe Sheekeye, warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.